aflaamta wathaaqiga ah ama documentary-ga aad ayaan u jeclahay una jeclaa yaraantaydii documentary waxayna siiyaan macluumaad aad u badan oo ku saabsan deegaanka nagu hareeraysan iyo caalamka idil documentary-da qaar waxaan ka baranaa inaan mar labaad ka fakarno xogtii iyo macluumaadkii aan daawanay nala baray ama aan horey u naqaanay ee nala tusay mar kale ka fakar waxa oraahdan aad u adeegsan jiray kanaalka ku caan ka baxay aflaamta wathaaqiga ama documentaries-ka ee National Geographic xitaa oraahdan marar badan ayuu adeegsan jiray xaysiisyadiisa waxaan idin tusi doonaa muuqaal oo isla oraahdan ku adeegsanayo oo sidan ah tuulo yar oo yara muuqato mid degan ayaa waxaan arkaynaa oday da' oo qara ku sita gaari dameer wuxuu ku arkay laamiga dhinaciisa maamad da' wuuna salaamaya waxa ka bacdi cod shabaqa oo ka soo yeeray gees kale ayaa wuxuu ka nixinayaa dameerkii naxay awgiis haraatu gadaal u tuuray awgeed waxa daadanaya qarihii saarnaa gaari dameerka haddaba qarayaasha soo daat waxaan filaynaa inay ku kordaateen maamadii da'da ahayd ee laamiga dhinaca kale ka taagnayd ka bacdi shaashad cad ayaa noo muuqanaysa oranaysa dameeruhu dadka ay ku laayaan dunida waxay ka badan yihiin dadka ku dhinta shilalka diyaarada mar labaad ka fakar soo la yaab maaha macluumaad caynkan oo kale markaa aragtid in isbedesho aragtidii iyo fikirkaad ka haysatay markii wixii aad hore u taqaanay ka fikar waxa isbedelay oo isweydaaray diyaaradihii aan hadii goor ka cabsan jirnay iyo dameerkii yaraa aan ku jeesjeesi jirnay waxaan sidoo kale idin taxi karaa macluumaad fara badan oo khalad ah oo aan u aaminsanahay inay yihiin kuwa sax ah buurta adduunka ugu dheer waa Everest maya waa Mauna Kea cirifkeeda salka badda wuxuu ka sareeyaa 10203 mitir laakiin 6000 oo mitir oo buurta ka mid ah oo badda ka hooseysa awgeed ayaa ka dhigaysa mid u muuqata mid gaaban dhanka kale Everest waxaan oran karnaa waa buurta ugu cirifka dhow cirka maadaama laga dheer yahay haddaba oraahda ah dherer ama joog mar labaad ka fakar Christopher Columbus ayaa helay qaaradda America maya ma ahan Christopher Columbus horaantiis ka hor qaaradda America dhanka bari yani Afrika Yurub iyo xitaa Aasiya badmaaxyo badan oo ka soo shiraacday oo dhulkaas tagay ayaa jiray laakiin Christopher wuxuu ahaa Europeaniski ugu horeeyay ee tagay qaaradda America ma oranayo helay ee waxaan oranayaa tagay sababtoo ah isaga hortiis dad meesha ku noolaa baa jiray oo hore u deganaa meel dad ku noolaayeen sida u soo heli kartaa waa tagi kartaa oo kaliya mid kale haddaan iraahno Red Indianiski ama hindida cascasayd ee qaaradda America ku nooleed markaas waxay la kulmeen Christopher Columbus oo markii ugu horeysay u imaanaya qof ku nool bariga markii ugu horeysay noole kale badda ka soo baxay markuu arko qaabkeeba soo dhaweyn lahaa ma kula tahay inay soo dhaweyn lahaayeen ama ay u arki lahayn qof wanaagsan taas waxay ka micno tahay dad isaga horaantiis imaan jiray ayaa jiray oo soo dhaweyn lagu soo dhaweyn jiray ahaana kuwa loo arkay kuwa dhib aan wadin ama mushkilad aan lahayn saadarteed si wanaagsan ayaa loo soo dhaweeyay ka bacdina wixii dhacay qisa ayaba ahayd haddaba dib uga fakar ereyga helitaan muxuu yahay helitaanow maxaa tahay dadku waxay leeyihiin 5 dareen ma ahan waxa la ogaaday inaan leenahay ugu yaraan darsan dareemo dheeraad ah oo aan ka ahayn aragga urta maqalka dhadhanka iyo taabashada xitaa maqaarka yaga aan ku ogaano dareenka taabashada ayaa wuxuu cabiraa heerkulka qabowga xanuunka cadaadiska iyo kuwa kala duwan marka oraahda dareen marka maqashid dib uga fakar haddaba oraahda ka fakir markaan maqalno waxaan dib u eegaynaa oo fiirinaynaa macluumaad hore aan u naqaanay waxa noo xaqiiqoobaysa saxsaraanteeda ama waxa noo soo baxaysa inay tahay wax kama soo qaad waxaan hore u soo sheegay inaan jeclahay aflaamta wathaaqiga ama documentaries-ka ah waxaan sidoo kale soo sheegay inaan ka bartay oraahda ah ka fakir mar kale haddaba anigoo oraahdii ahayd ka fakir mar kale ah waxa ii soo baxay macluumaad cajiib ah tusaalahaas qaybo ka mid ah aan idinla wadaago aan eegno cinwaanada filmaantan documentaries-ka loo bixiyay dilaaga weyn ee cad sheekooyinka aan la rumaysan karin ee weerarada libaax badeedka dilaaga ah ee Alaska xeebta geerida ee libaax badeedyada Australia xeebta geerida ee libaax badeedyada Australia wada cabsi way Soomaa waa ka cabsanaynaa kaliya marka ciwaana caynkan oo kala aragno dilaaga libaax badeedka caynkan oo kala ah ma laga yaabaa in uu diirna xilada asoo jijiifa way waxaan badan baa laga soo sheekay asoo dilaa asoo xeebahan joog asoo dad weerar asoo kan sabi asoo kan yeelay haddaba maadaama kanaaladan ina bareen inaan dib mar kale uga fikirno ayaan go'aansaday inaan dib u baaro muuqaalada caynkan oo kala oo aan dib uga fakaro natiijada ma qiyaasi kartaan sida aan ka soo xigtay madxafka taariikhda dabiiciga ee Florida Museum of Natural History laga soo bilaabo sanadii 1749 ilaa 2785 mar ayuu libaax badeed dad weerar ku soo qaaday halka kaliya 439 ay dhimasho geysatay 439 case ayaa dhimasho ku dhamaaday oo kaliya waxaan filayaa tiradaas tiro ka badan oo documentary ama aflaam wathaaqiga oo ku saabsan libaax badeedada ayaa la duubay mar kale ka fakar
waxaa suurtagal inaad isweydiinaysid oo waa yahay xayawaankan cad ee weyn ee waxshiga ah hadduusan wax layn yaa wax laaya ma dhagdheertii iyo juudaankii carruurta lagu cabsi gelin jirayba maya oo haddaba mayeyda dad cunka ah iyo libaax badeedyada ayaa u sabab ah maya libaaxyada iyo yeydu isku darkooda celceliska dadka sanadkii laayaan waa 10 qof oo kaliya ma xayawaanka weyninka badan ee maroodiga ah ee durjoogta ugu weyninka badan ba maya asagana celceliska dadka uu sanadkii laayo waa 100 qof u kaadi oo dhammaan libaaxii maroodigi yeydii libaax badeedyadii kulli waa khadka ka saara kulligood waxaan niri waxay laayay wax badan ma haddaba dilaaga caanka qarinaya weeye aan idin baro noolaha u sababta dhimashada 407,000 oo qof sanadkii waa dadka halka kaneecaduna ay sanadkii disho dad aan ka yarayn 1,000 qof mar labaad ka fikir daba oraahda oranaysa dameeraha dadku ay laayaan sanadkii waxay ka badan yihiin kuwa ku dhinta shilalka diyaaradaha mar labaad ka fikir ahayd waxaan go'aansaday inaan mar labaad ka fikir laftigeeda oo aan dib u baarno ma qiyaasi kartaa natiijada ii soo baxday waxaa cajiib ah inaysan jirin wax macluumaad ku saabsan dadka ay laayeen dameeruhu adduunka oo dhan wax macluumaad quseeya tamaaman ma arkaysid حتى هدي أراها ديب لوسي دبقله وحارك سواب سيدة كهذا معلومات كأن صح ونقانه خلط كأ وحكوش شيئين شكوين كعين كانوا كلا إنيهين شك حريره إحسان هاي وحقيقة دبرات للهين وحتى سيدر كون سقال بقرصديت نتضبادي جريدة نيويورك تايمز أيانين خبير وحقوق قري أراه ده هيس السيدة dadka u dhinta dhibaato kaga imaatay dameerada ayaa waxay ka badan yihiin kuwa u dhinta shilka diyaaradaha nin aqoon-yahan ah ayaa qiyaasaya haddaba kanaalada idaacadaha wax kastoo la daabacayo aad saxaafadda ka arkaysid iyo oraahda dameer iyo aqoon-yahan dib uga fakar